bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa duleedka magaalada Qada Sharaf mahadcelin iyo taageero ugu sameeyay wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo deegaanada Galmudug jooga dhismaha Galmudug loo dhan yahay. Qada Sharafto ay soo agaasimeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xildhibaanada deegaanka laga doortay ayaa dhammaan dadkii ka hadlay waxa ay uga mahadceliyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda dadaalada dheeraadka uu ku bixinayo dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo u adeegta dhammaan dadka reer Galmudug dadka ay ka dhaxayso maamul goboleedku waa soo dhaweynaynaa gooshaan fidsan baan ku soo dhaweynaynaa haddii ay wax tabteen oo hadda waa dhacdaa inay wax tabtaan way ka tabtaan qolada hadda Galmudug oo gobolka joogta caasimada waa soo dhaweynaynaa waana ka tiraynaa waana u tanasuleynaa ra'iisul wasaare dadaalka badan iyo juhdiga aad nagu bixiday iyadoo meel walba laga sugay amaal aan ku hayno waay waxaan arkaynaa ama dareemaynaa ugu yaraan 5 iyo 10 daqiiqo inay kugu taalo oo 3 iyo 10 kamid ah bahdan lagu geysanayo waa kaaga barigoynayna waana ka baaninayna waxaan ku sheegaynaa waa ku mahadcelinaynaa waa ku soo dhaweynaynaa waxaan kaloo ku bishaaraynaynaa waxa la yiri haddaad inta wax tabcado ilmaha dambe ay iyo dadka tabca kulalo ay soo wax xafidin oo tabca baa la yiraahdaa tabca baa ku kalifmayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka mahadceliyay soo dhaweynta iyo wada shaqaynta ballaaran ee dhammaan dadka reer Galmudug u muujiyeen ayaa bulshada Dhuusamareeb ka codsaday inay soo dhaweeyaan dadka reer Galmudug ee ka qayb galaya gogasha dib u heshiisiinta ayna muujiyaan tanaasul cid kasta oo tabasho qabtana ay fadhigeeda ugu tagaan si ay u qanciyaan maadaama marka idinku aad tihiin dadkii gogasha fidinay inaad gogasha fidisaan dadka soo dhaweysaan qalbi fiican u furtaan waa noo sheegteen waxaa la rabaa weliba qof walba oo dhib sheegtay inaad guryahooda ugu tagtaan degmadooda ugu tagtaan meel walba ugu tagtaan sababtoo ah leeskuma haysto Dhuusamareeb inay tahay magaalo madaxda Galmudug waxaa leesku haystaa ma laga shaqaysiin karaa taasna idinka la idinka rabaa dad Soomaaliyeed oo walaalihiina mustaqbalkoodu inuu ku xiran yahay idinku sidaa wax u ogolaatiin idinku sidaa isugu tanaasushiin sharafti iyo karaamadii Galmudug waxay ku xiran tahay in qof walba oo dhibaato haysato oo maanta aaminsan joogitaanka anigaan idin la joogo iyaga mustaqbalkooda inuu wax ka tarayo haddii aan rajadaas ka baabi'ino waa rajo annaga aan ku ciyaarno wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo senator Dhagay Geelowgaas oo ka hadlay kulanka Qada Sharafta ayaa u mahadceliyay bulshada Dhuusamareeb isla markaana ka dalbaday inay muujiyaan doorka caasimadda ay ku leedahay dib u dhiska Galmudug marka waan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo muxuu ahaa meeshan fadhino runtii ra'iisul wasaaraha saad muxuu ahaa aad ugu amaanteen yaan annaguna labada gol afkeeda ugu amaanayna dhawaaladayga iyo muxuu ahaa hawsha adag ee meesha ka jirta annaguna runtii waa garabkiisa istaagi doonaa haddaan labada golanahay marka reer Galgaduud gaar ahaan Dhuusamareeb waxaa la rabaa goosha deefront sabar badan in laga baahan yahay Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin waxa Ilaahay ka rajeynaa reer Galmudug Soomaaliya oo dhan in laabtooda Ilaahay isu xaaro tawfiiqda Ilaahna waafajiyo 11 beelood oo aad mid ka tihiin ayaa la rabaa meeshaan inay inta isugu yimaadaan talo iyo xikmad isu keenaan wixii ay dowlad goboleedkaas uu ku dhaqmi lahaa oo uu dad ku noqon lahaa iyo horumar ku gaari lahaa ay isla go'aamiyaan oo ay ka tashadaan oo ninba meel looga durko taaka markii laga durko waxa laga rabaa inaad gacan durugto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in dhismaha Galmudug iyo xoreynta deegaanada cadawgu ka haystaan la isku dhex wadayo isla markaana ugu baaqay dhammaan bulshada reer Galmudug inay gacan ka geystaan waqtiga la isugu faani jiray tiknikada waa la soo dhaafay waqtiga hubka waa la soo dhaafay waqtiga maskaxda lagu dagaalami jiray la joogaa reer Galmudug wiilashan dhalinta yar oo halkan jooga iyo gabdhaha mustaqbal ay u baahan yihiin laakiin kuwa ceel dheer joogay ceel buur joogay xarar dheer jooga
iyo kuwa galhareeri joogana mustaqbalkooda idinku xiran yahay kuwaas waxaa la rabaa inay tartanka aad gobollada kale kula tartamaysiin ay qayb ka ahaadaan cidna marka nus kuma tartami karto labada arrinoo idiin sheegay dib u dhiska dalka gaar ahaan dhisidda dowlad goboleed dhammaystiran oo galmudug la yidhaahdo iyo dhammaan gobollada ama degmooyinka iyo tuulooyinka nala ka haysto inaan xoreyno ciidankina waa haysanaa shaqadii waa socotaa hadda xerooyinku waa ku bilownay dowladdu 100% ay idin garab taagan tahay halkan waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo taariikh ayay ku lahayd dowladda hore Soomaaliyeed waa meeshii cadowga laga difaaci jiray waa meeshii xudunta dalka ahayd waa meeshii amniga laga sugi jiray dhaqankii iyo mad ka fiican oo hadda maskaxa ku salaysan ayaan rabnaa inaan soo celinno waxaan markii idinkaga mahad celinayaa inaad rabtaan in ay abaal gudaan inaad rabtaan in ay garab istaagtaan inaad rabtaan in ay caawisaan waxaan idinka codsanayaa galmudug inaan dhisno cadowgana ka xoreyno waa mahadsantihiin Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Dhuusamareeb